saddex sano ma dhalin daawada bisha koowaad oo qaata ilaahay uurka igu siiyay alshifa daawadeeda yaa ilaahay uur igu siiyay alxamdulillah waan lagu fiicnaaday xaaladaha dilankan lahay oo ku dilmaayay oo ku jahwareersanay alxamdulillah caadooyinkayga iyo waxaygii hadda way tooseen way nidaam ay noqdeen magacaygu waxa way Fahmi Isma Afrax waxaan joogaa xarunta Al-Shifo oo ku taala Muqdisho waxaan ahaa gabar aad u xanuunsan daawaan ka qaatay bisha anoo dhameenin ilaahay uur ugu siiyay wiilan ku dhalay wiilkoo iga saqiiray xanuunkii ebad ayaa igu soo laabtay hadeertaana daawadii un baa hal bilan qaatay waana ku roona alxamdulillah rabbil caalamiin haddana waxaan rabaa inaan 3 bilood oo kale 2 bilood oo kale hadii alla idmo aan ku dhameysto caloosha xanuunaysa buka waa liiga hayay meelo badan la liigay caloosha dhinaca bidixaa liiga hayaa waxba iiga nuuxsanayo marka caadi isoo socoto kale waa ku xanuunsanay waa ku wareeray badarka ma cuni karin badana waxay ahayd marka hadda alxamdulillah waana fiicanahay daawadana way ii socotaa waxaan rabaa inaan dhameysto hadii alla idmo xanuunka ahay markaan inta la soo xiriiray oo sida aan ugu sharaxay hadda aan u sheegabo dabaysha waa leedahay dhinaca bidixaa laga hayaa waxba iiga nuuxsanayo caadadu markay ii soo socoto waa ku xanuunsanaa markay iga go'ayso waa ku xanuunsanaa markii xagga naaga ahaanta waa ku xanuunsanayay lalabo waa iheysay adi siyaabo oo aad aan u xanuunsanayo dhaqaatiir badan waa liigay computer la saaray quraanyo waa la saaray cilaajo badan xitay waa liigay xaafada waa la igu saaray adi in muddo gabar oo wareersaneeda xarunta ana hadda hal sano ka hor imaaday daawada aan qaatan waa mid hadda qaato kale tood daawo la cunaayo saliid la marsanayo mid kaniin ahaan loo cunaayo waay hal sano ka hor aan imaaday intaana imaanin muddo 3 sano ma dhalin daawada bisha koowaad oo qaata ilaahay uurka igu siiyay ilaahay wiil u siiyay alxamdulillah waa iga saqiiray haddana shalay sidii leeyahay un baa leeyahay haddana xarunta aan joogaa hadda waxaan qaadanayaa muddo 15 bir camal hadda markii aniga oo umusha aan ka baxay oo 3 bilood 4 bilood camal aan joogay dhiigii bisha wuxuu ugu dhacay intii aysan dhalanin hadda laakiin markay dhalato oo abad hore oo saxad ii ahaa jiro ugu dhacaa markuu ugu dhacayana xanuun fara badan oo ii keeni jiray asoo isbuuc camal ahaayo oo si saaidina ii heeno igu joog jiray hadda laakiin markuu uu imaadana xoolo uu igu imaado markuu uu go'ayna asoo fiican xoolo u socdo ii go'ay alxamdulillah wallahi si fiican la macaamilay dadkaana ka fiirsaday YouTube-yada Facebook-yada laga helaa Cabdixakiin oo sharaxaya ku jiro inta markaa imaadana wiilkaasaan u imaado dhakhtarkaas oo ii sheegay sida ay wuxuu jiraan asana daawada siiyay daawada aan qaatana ma sha Allah ilaahay uu guulay hadeertaan ayadan jooga dhakhtar badan waa aan tagay meel ma daawaad kalena waa aan tagay laakiin wax oo intaas iga soo kordhami jiraan oo Al-Shifo ahayn iyo ilaahay wan idinkiis bulshada waxaan dhihi lahaa qofka xanuunsanayda oo cudurkaas ay waa inay imaadaa haddana aniga gabdho badan keeno oo ma sha Allah ku caafimaadey gabar waxa jirta saaxiibtay ee hadda oo hal mar isla imaanay bish oo wiligeed wax dhalin oo wiliba curan bish koobada ilaahay uur ku sii wiil dhashay hadda ma sha Allah wiilku way haysataa ayadana way imaanaysaa hadii alla idmo dadka kale oo amba xanuunsan amba dhibaatadaas ku jiraan waxa ugu baaqila inay imaadaan shirkadda maamulkeeda waa u mahadcelinaya waa mahadsiin insha Allah ilaahay shaqadooda ha ku guulayaan dhiilahay wayna mahadsiin 114 bismillaahirrahmaanirrahiim magacaygu waa Umu Hodan waxaan joogaa magaalada Muqdisho Al-Shifo online aan daawada ka qaatay alxamdulillah markii hore waa xanuunsanaayay aniga dhiig baxa dhiigal dhaw maxay ahayd dhiig dareer oo caadina ahayn ilmana ahayn ayga socday Muqdisho daawada oo kiimikada u isticmaalayna waxba iga qabaysay hadda inta imaadana ma sha Allah ilaahay igu shaafi maga daawada dabeesha qaatay ilaahay igu caafiyo alxamdulillah hal bil marka qaatay alxamdulillah ilaahay awlaad waa isiiyay haddaan joojiyay cunugtay 2 sano jirta haddana xanuunkii aan dareemay waa soo noqday hadda daawadii hadda ii socoto oo hal bil ayadana ay socoto
alxamdulilah haddana caafimaadaan dareemoyaa. markii hore aniga caloosha i fuursaneed dhinaca bidixda ah wax ii gadgadoomayeen oo cunug camal ah ay gadgadoomayay. caadada marna waa imaanaysa marna waa bixaysa. marka alxamdulilah markaan inta imaado daawada aan qaatay waa ii toostay maasha Allah. daawo ilaahayna waa igu daaway. 2 sano ka hor hadda imaaday aan ka hor oo imaaday 1 bil qaatay. bisha qaatay alxamdulilah 1 bil markaa qaatay oo daawada oo dabeesha aan qaatay ilaahay aa siyaadi siiyay waa leega joojiyay. mar labaad haddana u soo noqday 2 sano ka bacdi aan u soo noqday. haddana 1 bil haddana ii socotaa labaad waxa ii socotaa 10 bil camal qaadanayo daawada oo dabeesha oo ugu horeysay bish. intaan daawada qaadan maxay ahayd waxa igu dhacay dhiig oo 4 bilood iska socday oo caadadiina ahayn oo caadadii ka badan oo maxay ahayd dhaqaatiirta u tagana waxay dhaheen dhicisaa ku haayo oo daawada dhiciska hadday siiyaan hadii waa siyaade dhiig waa istaagi waayay. markaas meeshaan la soo tilmaamay soo aaday 4 maalmood gudaheedu dhiig iiga istaagay. dhiigaas istaagay gudihiisna ilaahay waa igu siyaado ilaahay igu siiyay oo daawada bisha qaatay. gabara ilaahay ii siiyay 2 sano jirta hadda. ilaahay ka soo daawada meeshaan ka qaatay oo ilaahay igu siiyay oodkaas. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaa la yiraahdaa magacayga Faadimo Ismaaciil Maxamed. waxaan ka mid ahay bukaanadii soo booqday Al-Shifa. waxaan qaatay daawada dabeesha alxamdulilah 3 bilood aan qaadanayay. ilaahay wuu igu caafiyay. dhibaato badan aan dareemayay. caloosha iga bararneed. baabuurta waa la igaga kacay marka sidii qof xaamilo ah. dhaqaatiir dalka iyo dibadda waa soo maray. meel la iga haayay meel kale waa kala garan waayay. nimcada ugu horeysay waxaan dareemay daawada markaa isticmaalay caafimaadaan ku dareemay. rajadeyda aad ay u fiican tahay. dhaqaatiirta hormoonaadkayga mar walba markii ay qaadaan dhiigaga waxbay iga sheegi jireen. markaan daawadii qaatay hormoonaadkayga hagaagay noloshaydii hagaagtay aadaan u fiicanahay. marka waxaan u sheegayaa ummadda muslimiinta ah iska dhibaataysan daawooyinkaas daawooyin aad u wanaagsan waaye. aniga ilaahay ay igu shaafiyay. waxaan Al-Shifa imaaday 13 Febraayo markii uu imaaday Sheekh Cabdixakiin maalintii ugu horeysay imaaday. xaaladeyda wayba qasneedba xataa salaada ma duka karin kuma duka karin istaag waa iska dhibaataysnay. aad u dhibaataysnay. dhibaatadaas mid ilaahay og yahay ahayd. alxamdulilah hadda ilaahay ay iga shaafiyay. waxay ahaayeen barar. waxay ahaayeen qalqal oo dhiig ah. waxay ahaayeen waswaas waxyaabo fara badan oo markaas meel iga haystay meel aan kala ogeyn oo dhibaataysnay. daawada la siiyay waa daawo bilbil la isiinayo oo 3 biloodba aan qaadanayo. bil kasta waa daawooyin isku dadarsan oo diyaarsan oo shirkadda u diyaarsan. bil kasta daawo aan qaadanayay. bil kasta daawo aan qaadanayay. 3 bilood waa dhameystay. bishii ugu horeysay markaan bilaabana nafis xoog leh aan helay. waxaa ku hayo bicos waxaa ku hayo thyroid waxaa ku hayo hormoonkaaga up down ah. waxaa ku hayo balansiga hormoonka ma saxno. waxaasay dhihi jireen markii aan daawadii qaataan baaritaan suubiyay waxay dhaheen maxaa suubisay suurtagal ma ahan adiga ma ihid maxaa ku suubisay. markaasaan waxaan dhahay nimcada ilaahay aniga og. saasaan markaas ilaahay ugu shukriyay. gabar walaalaha ay keentay anigoo iska wareersan oo markaas iska dhibaataysan oo isdhahayo wixii hore laga soo sheegi jiray ka badan kaama sheegayaan ma iska daysid. markaas indha adeegaas meesha sidaasaan ku imiday. alxamdulilah waxay ii noqotay nimco. ilaahay baa iigu nimceeyay. dhashu way iska xanimeedba iyada way iska xaniban tahay oo taas way jirtay. laakiin waxaa ka sii jira xanuunada dheeriga oo markaas amba bararka ah amba caloosha ku fuuraysa ah amba dhiigo ka qalqalaya ah amba hormoonka ka halaysan ah amba dhaqaatiirto maalin walba wax ku sheegayso oo aadan aqoonin waa iska jahwareersanay. hadda daawada way ii dhamaatay wayna ii gabagabowday alxamdulilah.
rajadayda aad iyo aad ay u fiican tahay. qofka markuu hagaago oo caafimaadkiisa hagaago oo wax walba ay u hagaagaan oo wax kasta nimcada Ilaahay way imaanaysaa. rajada hadda aan leeyahay waa rajada ugu fiican oo aan weligay yeesho ilaa anigu intaas sano dhibaataysnay. xaaladaha dilankan lahaay oo ku dilmaayay oo ku jahwareersanay alxamdulillah caadooyinkayga iyo waxaygii hadda way ii tooseen way nidaam ay noqdeen. aniga shakhsiyan alxamdulillah daawiraadka dadka badanaa ma aaminsana laakiin waxaan ogaaday oo aan xaqiiqsaday daawada ugu fiican inay tahay oo ugu tayada badan leh oo ugu wanaagsan oo kiimika aan lahayn oo maxaa ahay qofka Ilaahay markuu tawakkalo Ilaahay oo ku shaafinayo. alxamdulillah shakhsiyan aniga aadaan u tajriibiyay dhaqaatiir iguma cusbo dal iyo dibad iguma cusbo wax aan u dhigo iyo wax la mid ah ma arkin daawo dhireedka. shirkadda waxaan leeyahay ma sha Allah Ilaahay khayr ha siiyo waa shirkadda ummadda Ilaahay u soo diray oo la tacaalayso Sheekh Cabdi Xakiin qaasatan Ilaahay khayr ha siiyo maamulka Cabdi Casiis asigana sidoo kale.